duni iilatiyo waqti duubanoo tabinada iblays laga daahaybaa dad ku taagay القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في سورة البقرة. أما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. walaalayaal aayaddaas iyo caawa ay ku saabsantay casharkeenu qaacidadii labaad ee kitaabkii khawaatirta ahaa ee uu qoray sheekha cumar cabdillahi almuqbil ahad alculamaa isku soo ururiyey oo runaantii qur-aankeena iyan kasii faa'iidaysanaynaa. aayaddani maxay noo sheegaysaa? aayaddan waxay noo sheegaysaa arrin cajiiba oo qaacido nolosheenna aan ku dabiqi doona oo inaga badbaadin doonta walwal badan iyo walbahaar iyo qof shalayta iyo wax noocaas oo dhan doono iyo deganaanshiyo badan. aayaddani kow dhinac waxay calaaqa la leedahay ما هو الخير وما هو الشر. خير يا شر محوية وحي على قل لا هي محافي عن محافي عينين وحي على قل لا هي درين كبني آدم ك جعيلك ينعيمك. إذا ولا ليال آية ظهري إلهي سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية اللي أقول لي هي طبعا هي أساس كأنه يهي إلهي وحكا ورمي آية يوم كنت كريني بهاي كتب عليكم القتال وهو كره لكم دقالك هي جهاد هي واجبي لا إنك قدك استغور نفط بني آدمكم إذو أن نعبتي إنه أدكته والله إنه قصبي dagaalka maydan dooran badankana dagaalka islaamku deed ee muslimiintu weerar iyo dagaalayn iyo dallayn maahina waa istifaacis asaaskiisu. istifaac ayaa mararka qaarkood qaababka militariga ay qaababku kala gedisan yihiin laakiin asaaska waa istifaacista inaan cid la weerarin aanan ku soo weerarin cid aan lala dagaalamin aan kula dagaalamin. dee waxaanad moodaa baryahan dambana الجهاد إرجع جهادكم وإريده فوق بيضا لقى قاضي مشاكل كبضن أو قرش لكن أدونك تروح جوجنا دول كان جوجنا وإسكندرية في كل هو نبض بضن عالم أيو كميديا دولة أنا عيدا لهين أدونكم مجرد دولة أنا أمني لهين أدونكم مجرد مسلمين ترى كوا أمي لمديه إن markay muslimiintu dawlad yihiin ay nidaam leeyihiin bilaa wasaaradda gaashaandhigga ma soconayso. dee haddii kii kasta ee kusoo damcada la iska qaban waayo dee meesha xalaq mareen bay iska noqonaysa.
marka taasi waa meesha jihaadku waxa ka mid yahay cibaadooyinku ka mid yahay bal oo islaamku maadaama uu qiyam dejiyey qiyamka islaamka uu dejiyey ee maqaasida waaweyn leh nafta bini aadamka in la ilaaliyo oo hantidiisa la ilaaliyo oo sharaftiisa la ilaaliyo ee diintiisa la ilaaliyo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin ilaaladaas awood ilaalisay u baahan yihiin haddii kale satuntahaku lxurumaat marka walaalayaal qitaalkaas iyo dagaalkaas buu ilaahay ka sheekeynayay si guud inuu ka mid yahay waajibaadka muslimiinta ee waxaase muhimuun inaan hoosta ka xariiqno goormaa la jihaadaa yaa lagu jihaadaa halkee lagu jihaadaa iyuuna hadhow mid rogan intuu meelaha tareedhada galiya dadka masaakiinta ah unan ummadda inagu rogin waxaa laga wadaa meesheeda iyo madasheeda iyo waktigeeda intaasiba waa arrin muhiima qof kastaana deed wax iska fowda maaha inuu cidduu doono ninkii doonaa wadaad kastaba intuu meel yar afar ku xidha uu ku iclaamiyo ma shaqaynaysee waxay noqonaysaa dee wax nidaamsan oo muslimiintu jihaad haddii laga warramayo intii hore o dhan dee nebi maxamed ba waa loo diidanaa inuu jihaad galo aynan duruufta nololeed saamaxaynin kolley waad wada garanaysaan siirada aayadahan laftooda ka horba in dhibaato lasoo gaarsiiyey ilaa heer ay dhaahaan mataa nasrullah guushii ilaahay goormaan helayna alaa ina nasrullahi qariib imtixaan bayna iska ahay walaalayaal isku soo wadagey aayadan halkaynu u soconaa waa halkaas maaha jihaadkeenan caawa ka horan habeen kale ka sheekayn doonaa kulley kitaabyada inta dambe kitaabka fiquljihaad uu sheekheeni qardaawi qoray baa kutubta aadka ugu fiicane sharxaysa iminka inta dambe aan arkay laakiin culimadii hore fuqahadii waa dadaaleen oo turaaf tirada ka badan bay keeneen qofku mararka qaarkood ku dhex wareeri karaa haddii unan lahayn awooddii uu ku fahmay si guud laakiin qur-aankeena markaad fiiriso aayadaha qur-aanka iyaaba kaa shaafinayaba horta jihaad muxuu yahay goorma iyo waayo isku soo wadagee aayadda wuxuu ilaahay yidhi jihaadkaasi oo qofka laba midkood adduunkana sharaf ugu noolaanaya hadduu si noolaado hadduu dhintana ilaahay jidkiisii uu ka daacad yahay ilaahay jidkiisii uu ku dhintay uu janno ku galay jihaadkaas baa waajib laynaga dhigay wahuwa kurhu lakum buu ilaahay yidhi isaga oo yacni ay karaahiya dhib iyo nacay badan uu ku jiro qofku ama dee ma jecla gurigiisa inuu ka tago reerkiisa uu ka tago nabadiisa uu ka tago inuu mashaakil galo qofna adduunka maro wahuwa kurhu lakum horey ilaahay si wada wuxuu yihi wacasa an takrahu shay-an waxa dhab ah wacasa an takrahu shay-an waxa dhaba buu ilaahay leeyahay casa hadday xagga ilaahay tahay badanka waa run casa dadka bani aadamka laga yaabaa noqota wacasa an takrahu shay-an waxaa laga yaabaa inaad wax nacdaan hee wahuwa khayru lakum oo uu khayr inigu jiro wacasa an tuxibuu shay-an waxaa laga yaabaa inaad wax jeceshihiin shay wahuwa sharu lakum oo shar waxaas uu shar iniyahay sababtuna waxay tahay idinku cilmulgeybka ma taqaanaa waxay naga qarsoon ma taqaanaan iyo arrimo halkay ku dambayn doonaanoo wallaahu ilaahay baa yaclamu og wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogdina waa ka dambayn doonaa dhibkan iyo mashaqadan ma garanaysaan laakiin ilaahay wuu garanayaa huwa callaamu lguyuub waa iyada oo guud ahaana ayaa aayadda laynoo sheegay suurat النساء wuu fasiray taasi waa caam tan hore waa caam waa qaacido caama meel kasta ku dabaqmaysa marka suurat النساء tafsiir baa laga bixiyey meelaha laga yaabo qofku inuu wax dhibsado laakiin khayr kugu jiro iyadoo laga sheekeynayo dumarka iyo calaaqada ragga ka dhaxaysa iyo dumarka oo laga tago ama lala joogo
إلهي محمد فإن كرهتموهن ورهدت لساتان فعسى وهو بالا أن تكرهوا شيئا إن الوحد لساتان ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إلهينا الشيء قاعد يفصل إنسان خير بدن مكيل. وحكى الله صيفة السرية حديث في صحيح مسلم كرسول صلى الله عليه وسلم له قف مؤمن قف كمؤمن وما عرضه قف مؤمن وقبل مؤمنة وما عرض شيء إلا متكرو كفر وكه ليا أو معناه ذا يدون وحور هدي أدو حد استمر كقاركود أهم مرة كقاركود صبر كاس في عين قاعدته يضع كوما حلاله بني آدم كي إنسان وهو كل عكرة الرما قدر كل عكرة أو حنون بدن أو دفسنايو والله يا بينو ولا بدن كم موجيو وقالوا كأرجعه أو كم مرجوده أو ملايا أنتي ده ودن بيساعدها لكن dhibaatada iyo walwalka iyo argagaxa wanaag badan iyo rayn badan iyo khayr badan oo ka dambeeya dhici karta inta baartu ku soo ururaysa aayadda hore waxay ka warramaysaa cibaadooyinka jeedka cibaadooyinku baabkaas oo kala yani waxyaabaha waajibaadka haddaan ka soo qaado aayadda dambana waxay ka warramaysaa mucaamalaadka iyo calaaqaadka dhinaca kale aayadda hore aakhiray ka warramaysaa aayadda dambana adduunkay ka warramaysaa dhinaca kale aayadda hore waxaa laga yaabaa inay ka warranto jihaad iyo dagaal iyo waxaa laga warramaa xanuun jirka qofka soo gaadha dhaawac baa soo gaadhi kara xoolihiisa wax ku way kara siyaabo badan ta dambana waxay ka warramaysaa xanuun نفسي حنون نفسي يا دعك حنون بقف سوق ذلك واحد أكسونتي ولا ليا إنسان إلى ما بكور من إلى حول لقد خلقنا الإنسان في كبد إنسان كان لما امتحان يدي بعطيه مشكلة مشقة يتعب بكتير هارت آياتاً إيه آياتها لمدكي وآياتها إنسان كبير ونبي هذاك غفلة الدجيني ستريسك قلوبك كالدجيني سؤال سؤال قادرين أنا مركب القرآن إيه آياتاس سأقول طبق ما يسوى سيدا أو شيخ هو ملاك من الرسول قاتل قاركوت وحكم هذا قصدي نبي الله موسى هو يدي وحال عمرو له وحي دينا كذا إن يصدق كردو به كدبنا إنه بيها سنو عن قليان فرعون وان آخرين القرآن أنت حنون يا حي قصة القرآن الجواري إن هو يدرس المهم وقع كلا فرعون ونكي وحلينا إياه أوليهم موسى دراد جدت كلور ليني قولي يسي ولي بس ده وكتبه وإن أنت ولا شيء كضبط ترتو لبعض قرار كإلهه إلهي وكور حتى إلهي آيات القرآن كسورة القصص لولا أن ربطنا على قلبها يعني وحي كل دواتي إن أي قيل سيت هو إنك ساسي كل دواتي لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين هذا الكيب اللي أنت إلهي سائل هي وهيسي هي وقلبي عضيكتي ويدور عضيكتي ويصابتي
الربط محو كل ماضي أنت اسمها كل مات أنت اسمها كل مات فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن هو يدي ما لو سوء عليه المه أو مشاعر لو سيني يولي أو لو إلى لي كل يوم بقول كنا لك سوق جوية تذكر كلامنا نسجع لولا يسجع نسجع كلنا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أود إلهي بتسيني قرارك قلبي هو يدي المه كم مقنع وهو كان بشارة كان هناك تبوك ومد كمدها قصة يوسف لما أنت يدي وحي كل عيانا يوسف هي قصة ديسي أوردن هي أبيه يعقوب عليهم السلام واحد بعتبر طبعا يامات أو قفون ده دي له درسيلة أنا مرنا دورتها مرة كستوى موقف كستوى متكون بو يكسو بحي أسباب تاسبيل له ديارين إنه مصر أو حكومة كان يدقنا دان دي دور هالك لقى صار باديه دباتوينك لكن maxaa ka horeeyay qaraar badan iyo dhibaato badan iyo waxa ka horeysay imtixaanaad iyo ka horeeyay كذلك مكنا ليوسف waxa kamida qisadii ilaa quraanka inoo sheegay suuratul kahf ilmi yaraayo khadar dilay ee hadhowna xikmadiisa ilmaha sababtu u dilay qaybka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo weysiiyay ولها فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة لماذا والد واحد دعي كرتا إن المحاس دعيو نحن إيو والولبو ولا ماذا لكن مرة عقبدي سيدا بلا فيري وحيلها نوشاك وخضر اللي ويسيادو كان يسيرنا على ذكون وهلاكي كو خير بنا لو بدل ولا ليال wax badan quraanka warimaha ka warramay baa jira waxa kamida bilowgii dagaalkii badal kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun hadi suratul wakil ay kulaha turiduna ghayra dhati shawka in safarki iskaga soo bixin le dagaal ugu soo talagalin badare saf alkaas waa ka sawiradiisna ka muuqday in safarkuna iska soo qabsadaan oo nabad iyo aanay gub iskaga soo noqdaan ayay iyagu rabeen ilaahina wax kale u rabay dagaalkaasi inuu dhaco qaab muslimiinta ku shahiidaan ku rafaadaan 300 iyo wax iyagoo ah 900 iyo siyaada ilaa 3 la ay la dagaalamaan laakiin maxay isbedelayaan haybad iyo sharaf bay yeelanayaan dagaalkii badarka يوم الفرقان quraanka ku magacaab يوم وما انت لك la baxayba wala layaal waxa ay kamid tahay qaacidadaasi sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam dan soo ka soo qaadanayada qisat salama waxa leedahay salama إذا صورني حديث كا قف مسلم مجرو أو مصيبة كل عايز دباتة كل عايز أو أرنيا وإلى هي أمري أو لهم محن أمر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون انت صارينا الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون قف كل إلهي وأنا مرك هرب إلها سجارة النقانية الدون كن نن وحلي من دمجره
nin walba isagoo maran buu yimid soo ma isagoo maran oo ka tegayaa saan u nimidnay innaga oo keli ah uma kelidaa kaga tegayna aayaddaasi markaa sawirka masaa'ibka iyo dhibaatooyinka ayay inoo fudaydinaysaa marka qof dhibaatada ku dhacayso ومسلم واحد تدي قف كيدا مركا وحي أمر إنا لله وإنا إليه راجعون وقصيد رد دعاء اللهم أجرني في مصيبتي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قف دبعت كل دعوة دعاء يذيك آخر المجر وإله يوم دبعت الله كل دعوة متك واحد خير بدني بدل خير قويس وما دام بدل خير قبل إلا هذا أساس دعوة قف قاس أساس ما هيو إلهي وحو بدليا وحا خير بدل ندو قف مركا حسوسته والذكر يا آخرين وهاي المركو هدبا أبي سلام الدنتي ينقل دعيستي مركا ساوحاني لي أي المسلمين خير من أبي سلام المسلمين يا هرت أبو سلام يا وكبا خير بدنابا دارين قف مركو ديد واتقرانيسا حالتا وكجر هبلس ورجل عانتا بدن كجرو ظروف عادك بيتنا وحول بوسو مذوباده باب بدن با كسو خيرما waxaan dhaweytay yaa muslimiinta ka khayr badan ba Abu Salam yaani way akhay ila rasuulkii oo socdaba uu soo galay hooyooyinka muslimiinta kamid ay noqotay marka kadib bay fahantay xikmadii iyo ducada abaalkii waxaan tilmaamaysaa walaalayaal aayadan iyo qaacidadan quraaniga waxay tilmaamayaan inaanan nolosha lagu soo koobi karin mowqif keliyaad inaanan nolosha lagu soo koobi karin iyo adduunka iyo rajada oo dhan qof keliyaad meel keliyaad ayay noo tilmaamaysaa qofku ilaahay u tala saaran asbaabta uu karayo oo dhan uu qaadan oo qofku yani macnaheedu maaha inaynu abuurayno fikirka ah qofku waa un musayir maaha waa la wadaa maahine qofku waa mukhayyar ilaahay subxaana watacaala ikhtiyaar buu siiyey xorriyad buu siiyey xorriyadiisa uu ku shaqaysan ilaahay uu ku caabudi dadku kula dhaqmi لكن مركي دبعتها دعوه إلا مخرج منها ده إنه قف إنتو جود هوستلو أو سبب يودع عيسى إنه قوة غيره آيات دني إنك بوكسينيس وقف مركز تقاعدة دوكا دكتور وعسى ديك استغفر وعسى أن تكرهوا شيئا هذا دوكا دكتور قاعدة نرشيس والبدن بعد كده بدبالي نما بالي صار دقي مال ان سوشيالات مركز سوي بلايداس أنا عايداس وي بوكسي سوي دين كورها نم والبوحد عايداس وعايدا كنولا عايداس وعايدا كوسو عايد قفول بقى عليه وكبهي امتحان كان نراش إنه امتحان دعيو شاكي قمتيو ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة الأنبياء إن لسبي امتحامي خير يشر لمضبط دي هذا نصور نقرنا آيات كلا إله سبحانه وتعالى في نور شيئية سورة النور أبسلوت خير وحلا لهنا مجرو أبسلوت شر وحلا خير محض ينمجرو شر محض ينمجرو وحكم ذا قصدي رسول صلى الله عليه وسلم لما سبدي قريجيسا بنت لقسمي الدبعتها انتي لكيدي قاعدة المسلمين تي سكو ساجن رب مساكين لقليل بط ضم منافق شيء مومي باكو قوتي أنتي أي فرح كبحدة مدو إله سبحانه وتعالى ونن صوب بروفير وحي ونن سود دقيق
qaabka loola tafaaculay ee rasuulka ilaahay ay saxaabada hortiisa isku qabsato masaajidkiisii ee tuhunkii batay ee sheekadii badatay ee munaafiqiintii ka faa'iidaysteen ee kuwa muslimiinihii ay galeen ilaahay wuxuu yihi laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum shar ha u malaynina khayr bay inay tahay khayr ayay inay tahay لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم maxaa laga faa'iidaysanayaa walal qaacidadan aayadan qofku kow arrintiisa inuu ilaahay u bandhigo oo uu ilaahay u sallimo uu isku dhiibo ilaahay aslim qaala aslamtu lilahi rabbi alcaalamiin qofku inuu ilaahay isku dhiibo leanno ilaahay subxaana wa tacaala arrimaha iyo dhammaadkooga ilaahay unbaa garanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala options anagu aadan siinin iyo ikhtiyaaraad sida inoola muuqato oo qalbiga oo qofku ka faaruqiyo waxyaabihii shuqlin lahaa ee norwejiga grublinka iyo bishimriga grublink waa wixii hore way bay u dhaceen bishimriguna waa walwalka iyo ka iman doona say wax u dhacayaan say noqonayaan dad baa waxaa jira dad cabsi ku nool baa jira cabsi 24 saacadood cabsi baa ku nool yihiin way muraayadaha sitaan baa madow sabaa dhici doonta kan baa dhici doonta baa dhici doonta cabsi baa ku nool yihiin taabuu qofku ka badbaadaya xadiidkii oo markaa soo qaadanaynaa si ay aayadda si fiican ugu fahanno ibnu cabbaas oo rasuulku sal slam kula dardaarmay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal wastacin billah ilaahayna kaalmayso walaa tacjaz ha caajisinoo ha fadhiisani ha isdhiibin haddii uu kugu dhaco wax si wada xadiidka wuxuu ahaa wixii kugu dhacay kumuu gafeen wixii ku gafeena kugumu dhaceen hadday wax kugu dhacaan ha odhanin low أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل وحي لها قدر ولا هي قري في اللوح المحفوظ دي وحنا من سنة مؤمنين بأنه قدر الله سبحانه وتعالى إنه أغي هاي علام الغيوب هاي أو علم جيس ولوح المحفوظ كقو قري وحنا عيودا وانا مرنا وطع سعين عليه دو هاي in dulmiga la deysto dhibaatooyinka la deysto la daawado oo sharka qadar laga dhigo argumentation looga dhigo aynan ahayn laakiin waxaan wada ogsoonahay ilaahi subxaana wa tacaala in uu looxul maxfuudka wax walba ku qoray taa waan hubnaa waa waxyaabaha qofka muminka sii dejinaya ee uu ilaahi subxaana wa tacaala uu xasiloonida badan ka qaaday قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وحنا إلهي نقر وحكى لنا هو دعيان وحكى لنا هو دعيان إذا ولا ليال وهي تستلمام إيسا أن كسر نقرنا نلشي نجارك تقويسي تا مير والبا آية داسين إننا نقطة قاعدة أو haddii waxaad dhibsataa oo kugu dhaco waxaad ogsoonaata in ay khayr ku lacalahu khayru laka inuu kuu khayr badan tahay baa laga yaaba mararka qaarkood dee naftu wax badan bay jeceshahay xataa jacaylka naftu mar walba shar khayr maaha laftigiisu oo shar bay jeclaan kartaa oo waxay jeclaan kartaa in nafta bani aadamku dadka bani aadamka inay ku xadgudubtay mararka qaarkood jeceshahay in dembiga iska dhex dabaalatay jecesha inaynan isqaban bay jecesha
naftu inaanan qofku su'aalaha adag isweydiin bay jeceshahay laakiin وخير لنفسك عصيانها نفتنا وها خير وجرا إلا غوري ما دتاس انت هلا غوري ما دو أيو خير وجرا قاعدة نعاو آيات سويا قفك مؤمن كانوا نقول كرتيفتين ونرشي سكوب باديو أو كوب بادو والكان شيء نفرح بدله يوريرك بدل انت كلا ان شاء الله نقاشات سؤالا كل جنينا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد